markana magaalada Hargeysa xabsiga magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland waxa laga sii daayay fanaan Salax Carab oo isagu maalmihii la soo dhaafay ku xirnaa magaalada Hargeysa wariyahayaga Nuuridiin Culujoog ayaa warbixintan nooga soo diray Hargeysa fanaanka Salax Carab oo muddo dhowr maalmood ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa xorriyadiisii dib loogu celiyay xadii maanta kadib markii ay cadaatay inuu yahay muwaadin Yamani ah laakiin luqadda Soomaaliga ku heesa fanaanku ay garab taagan yihiin mas'uuliyiin ka socda xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid oo qayb weyn ka qaatay siideynta fanaanka ayaa ka dareen celiyay xorriyadiisa loo celiyay wallahi alxamdulillah ilaahay baa maad iskale waxaan marka koowaad u baahan celinayaa dhammaan bulshooyinka reer Somaliland ugu horeeyaan dawladda iyo xisbiyada mucaaradkuba waxaan kala mahad celinayaa jaaliyadeeda Yamanta waxaan kala mahad celinayaa xisbiga ucid iyo xisbiga wadani gudoomiye Faysal Cali Waraabo amiirka iyaga Anwar gudoomiyaha jaaliyada Xadaara maamooyinka adeerkay Daa Salaal oo ah gudoomiyaha jaaliyada madaxweynaha Somaliland iyo taliyaha booliska taliyaha CID-da bacda saxaafadda aad baan ugu mahad celinay laakiin fanaaniinta abaal dagama dhaxayn leh wad maasantiin laakiin bulshooyinka reer Somaliland aad iyo maamulkaba si sharaf leh ugu mahad celinaya wayna ku mahadsan jazaak fanaaniintii kula xidhnaamay wallahi fanaaniintii ila xidhnaa way joogaan iyagana waxaan rajaynayaa insha Allah in la soo daayo aanu soo duceynaa duu ilaahay insha Allah xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ucid Yuusuf Kayse iyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Sidiiq Dhamme ayaa iyaguna ka hadlay siideynta fanaanka Salax Carab Salax Carab waa fanaan reer Yamaniya runtii in la ixtiraamay dastuurkii qawaaniintii waanu ka mahad celinaynaa annagu mar walba waxaanu jecelahay calanka sharafta leh inaan cidna lagu hoos tulmiyin hadduu muwaadin yahay iyo haddii aanu muwaadin ahaynba dadaal dheerna waxaanu ka galnay Salax Carab inuu xorriyadiisa xaq u leeyahay asaasiga u helo Salaxna waxa lagu haystay inuu xamar ka heesay Hargeysana ka heesay Hargeysa xamarna isagu maadaama uu yahay nin Yamani oo isugu mid marka inay xeer ilaalintu garwaaqsatay oo ay shuruucdii iyo eegaan sharcigii waan uga mahad celinaynaa bilayskana waan u mahad celinaynaa marka horeba wuxuu ku xidhnaa sifo sharci darro ah sida xeer ilaalintu nala aqoonsatay ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha xisbiga ucid oo dadaal weyn ka galay waxa kale oo u mahad celinayaa amiirka amiir Anwar Saciid oo isna aan hariya habeen ka seexan soo deyntiisa waxa kale oo qaybaha dawladda kala duwan oo ay ugu horeeyaan xeer ilaalintu gudoomiye xeer ilaalinta gobolka Mawlid Cabdi Ibrahim ninka la yiraahdo Abdax 5 daqiiqo taliyaha dababaarista hay'adda baarista CID-da Faysal taliyaha saldhigga dhexe komishinka xuquuqul insaanka oo isna door weyn waa markii koowaad ee mucaaradka iyo komishinka xuquuqul insaanku ay maaragtay ka wada shaqeeyaan hawlaha waxaan rajaynayaa inay nagala shaqeyn doonaan muwaadiniinta kale ee Somaliland ee sifaha xaaraanta ku xidhan jeelasha ku jira laba fanaan baa la socday Salax Carab oo iyagu muwaadiniin ah isagu muwaadin Somaliland oo muwaadin sifo sharci ku soo galay dalka sifo sharci ku joogay laakiin muwaadiniintii kale ee Somaliland eedoodii xirlaanta way diyaarisay waana la gudbiyay Nuuridiin Culujoog Universal TV Hargeysa